turkigu waxa uu xidhiidh xoogan la leeyahay wadamada Ukraine iyo Ruushka oo hadda uu dagaalku u dhaxeeyo waxaana xukuumadda Ankara ay dhowr jeer ku baaqday in colaadda lagu soo afjaro wadahadal diblomaasiyadeed iyadoo Mareykanka qudhiisa isna hadda ay muuqato inuu taageersan yahay fikirka Turkiga. Mareykanka iyo Turkiga ayaa hore isugu maandhaafay gantaalaha S-400 ee difaaca cirka ee Ruushka lagu farsameeyay oo Turkigu uu soo iibsaday sanadkii 2020 kuwaas oo Washington ay u aragto in halis ay ku yihiin habka difaaca ee gaashaanbuurta NATO oo Turkigu xubin ka yahay. Asahaatee Turkigu khatar uma arko gantaalahaasi uu ka soo iibsaday Ruushka waxaana jira xiriir ganacsi iyo mid difaac oo u dhaxeeya Ruushka iyo Turkiga. waliba waxa intaasi sii dheer in dhaqaalaha Turkigu uu ku tiirsan yahay dalxiisayaasha ka yimaada Ruush. Mareykanku waxa uu cunaqabatayn ku soo rogay Ankara. cunaqabatayntaasi waxay saameyn ay ku yeelatay lacagta liiraha ee wadanka Turkiga oo hoos u dhac weyn uu gaadhay. geesta kale Ruushka ayaa ka biyadiidsan heshiiskii Turkigu diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 kaga iibiyay Ukraine kuwaas oo hadda door ku yeeshay dagaalka soconaya. Turkigu waxa uu xaddanka badda la leeyahay wadamada Ruushka iyo Ukraine waxaana uu cambaareeyay duulaanka Ruushka ee lagu qaaday Ukraine laakiin haddana waxa uu ka soo horjeestay cunaqabataynta reer galbeedku ay ku soo rogeen Ruushka. war murtiyeed laga soo saaray wadahadal ay magaalada Ankara ku yeesheen wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Turkiga Sadat Awnal iyo ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Wendy Sherman ayaa lagu sheegay in labada dal ee isbahaysiga ay xaqiijiyeen inay taageersan yihiin ilaalinta xornimada dhuleed ee Ukraine. dhawaan ayaa Turkigu waxa uu Ruushka ku wargeliyay in maraakiibtooda dagaalku aanay ka gudbi karaynin marinbiyoodyada Bosphorus iyo Dardanelles oo isku xidha badda madow iyo badda kale Mediterranean-ka. Ruushka iyo Turkigu waxay isaga hor yimaadeen colaadaha ka ognaa dalalka Suuriya, Liibiya iyo dagaalkii gobolka Nagorno-Karabakh sanadkii 2020 ku dhex maray wadamada Azerbaijan iyo Armenia. hase ahaatee xidhiidhka u dhaxeeya Ankara iyo Moscow ee gaashaandhigga iyo ganacsiga ayaa mid aad u xoogan. reer galbeedku waxa in badan hadda ay isku dayayaan in xukuumadda Ankara ay u jeedaan inay qayb ka noqoto cadaawadda ka dhanka Ruushka. hase ahaatee Turkigu arrintaasi aad ayuu uga taxadirayaa waxaana xukuumaddiisu markasta ay ku baaqaysaa in la isugu yimaado wadahadal diblomaasiyadeed.